magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar loo qabtay in ka badan 40 dhalinyaro ah kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka lana baraya cilmiga kaluumeysiga warkan hanoo dhameystiray wariyahena aadan macallin aadamo dhalinyaro ka socday Degmooyiinka maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa muqdisho loogu qaybiyay doomo yar yar iyo qalabka lagu gaado kalluunka waxaana qaybinta doomahan iyo qalabkaba ka horeeyay tababar muddo soconayay oo dhalinyarada la siiyay si shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada shaqo la'aanta ee dalka qaar ka mid ah dhalinyarada la siiyay qalabka ayaa sharaxaya tababarka iyo qalabkii la siiyayba waxaan ka imid dhangan baraawe waxa ay hadda isiisay qalab oo iga maqneed aan u baahnahay alxamdulillah waan u mahad celinayaa sidii hay'addu wax noo qabatay faaw iyo tababaro iyo seminaariyo oo noo qabtay waxyaabo badan oo naga dhimnaayo oo haddana lagu soo kordhiyay alxamdulillah ilaahay aan u mahad celinayna waxyaabaha la iisay waxa ka mid ah sida doominkan aan u jeedin iyo qalabkan oo geedaan iyo qalabkiisa isla socdaan waxa ka mid ah alxamdulillah waa qalab anaga aan u baahneenay aad iyo aad way mahadsantaa anigoo ah Cabdullaahi Ali Tuuso kana socdo Hirshabeelle waxa ayna gudoonsiisay maanta qalabka ayna gudoonsiisay Hirshabeelle hay'adda faaw waa ku faraxsanahay wax badan shalay aniga shaqaale ahay Soomaa maanta in aan shaqadiisii la muujibara laga yaabaa wasiirka kaluumeysiga maamulka koonfur galbeed Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay kamira dhaliyaan si dhalinyarada la midka ah loogu raadiyo shaqooyin noocan oo kala ah haddii aad si sax ugu shaqaysataan waxay nagu dhiirigelinayaan annaga iyo faawba in dhalinyarada kale ee isteediyada degan mar labaad ayagana loo raadiyo fursado kale laakiin haddii aad ka faa'iideysan weysaan oo doomihii aad ku shaqay weysaan ma nagu dhiirigelinayso in mar labaad dhalinyaro kale doomo la siiyo kooxo horaa jiray oo ka faa'iideystay doomahaas kuna shaqaystay guulo la taaba karana ka sameeyey haddana maanta ayaga muxuu ahaa deeq-bixiyaal ah oo shalayna muxuu ahaa beneficiary ahaa maantana waa deeq-bixiyaal oo ayaga muxuu ahaa shaqaalo samaystay iskaashatooyin ay samaysteen gudoonsiinta qalabkan kaluumeysi iyo tababarka loo sameeyay dhalinyaradan ayaa imaanaya xilli dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad gaar ah iska saartay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira dalkooda iyadoo lagala dagaalamayo maraakiibta sharci darrada ah ee jariifka ka waday xeebaha Soomaaliya aadan macallin aadamo TV-ga SBS muqdisho